taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa gaashaanka u duruuray warar been abuur ah oo ay faafiyeen xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyadoona digniin adag loo diray xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku howlan fidinta propagandada ama wararka aan sal iyo raad toona lahayn. taliyaha ciidamada lugta ee militariga Soomaaliya Generaal Maxamed Tahliil Biixi oo wax laga weydiiyay arrinta dhalinyarada tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ee warkooda la leeyahay sida siyaasiyiinta mucaaradku ay sheegeen in dhalinyaradaas iyo kuwa kale oo tababar u jira dalal kale oo caalamka loo adeegsaday dana siyaasadeed. hase ahaatee taliyaha ciidamada lugta ee militariga Soomaaliya oo u waramay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in ciidan ay Soomaaliya ugu maqan yihiin dalal dhowr ah keliyana ciidan tababar aysan ugu maqneen dalka Eritrea. taliyaha oo wax laga weydiiyay arrintan ayaa ku tilmaamay isla markaana si adag waxa uu u beeniyay warkan in ciidanka Soomaaliyeed ee tababarka ugu maqan dalka Eritrea ay qayb ka noqdeen dagaalkii ka dhacay waqooyiga dalka Ethiopia oo lagula dagaalamay kooxdii TPLF. xaqiiqadu waxa ay tahay ciidan uu dal tababar u dirsaday wadan kale dagaal ma ku gali karo. 100,000 oo ciidan ayuu leeyahay dalka Eritrea, marka waxba ugama baahno ciidan dal kale. cidda u ogolaanaysana ma jirto, marka waa been, mana dhici karto in ciidankeena uu dagaal galay, ayuu yiri Generaal Biixi. sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay taliye Biixi in dowladda Soomaaliya ay soo celin doonto ciidanka tababarka ugu maqan dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Eritrea marka ay soo dhameystaan tababarkooda, isagoo waalidiinta Soomaaliyeed ee wararka been abuurka ah lagu laabkiciyay ugu laabqaboojiyay inay isdejiyaan oo aysan rumaysan wararka been abuurka ah oo ay faafinayaan siyaasiyiin danley ah kuwaas oo ay ka mid yihiin xubnaha mucaaradka. maalmihii la soo dhaafay waxaa cirka isku sii shareeray cabashada waalidiinta Soomaaliyeed oo caruurtooda tababar loogu qaaday dalka Eritrea kadib markii warar aan wanaagsaneyn ama qalbiyadooda aanan u wanaagsaneyn waalidiinta Soomaaliyeed ay baahiyeen xubno siyaasiyiin ah kuwaas oo aan daneyneynin in Soomaaliya ay yeelato ciidamo awood leh.